kooxdaydii oo ahayd top playerska oo guddoonsiinaysa hawshan garoonka waa sida ay tahay waxa weeyaan waxaan guddoonsiinaynaa 500 oo muxuu ahayd oo leey jaajuura garoonka muxuu ahayd oo leey hawshiisa wada Maxamuud mar labaadkana waxaan u mahad celinaynaa Maxamuud iyo hawshii qoladii muxuu ahayd oo leey hawsha waday ciyaarna waqti ma siinaa caafimaad ahaan iyo magac ahaan iyo si kastaba inuu raadinaa laakiin balan wax tar ku darsan si ay bari kuugu noqoto wax dawabadkaagu aad uga tagtid waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu hawsha sida ugu khayrka badan inoo waafajiyo inoo dhammaystiro kulli waxaan ogahay wixii loo kaco haddii sideeda lagu kaco waa dhamaanaya laakiin guud iyo dibadba waxaan leeyahay baaqaha laga soo jawaabo dhalinyarta iskeed isku xirqaantina waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin garoonka laftigiisa in aanay marnaba ka daalin hawsha ilaa iyo dhamaystirkiisa oo dartiisa ay ka qayb galaan inaan hawsha marnaba aanay ka daalin insha Allah ta'ala ilaahay inuu la qabanayo anaguna aan la garab taagnaanayno u sheegaynaa dhammaan dhalinyarada gobolka Togdheer meel kasta joogaan inay qaataan oo inaga qayb qaataan garoonka iyo hawshiisa meel kasta joogaan intii aan wax u dirnay inta aan arag inta naga maqan yaani nagu soo socota dhammaantiin waxaan idin sheegaynaa inay naga soo qayb gashaan dhamaystirka garoonka inay ciyaartooy badan baa halkan dhinaca taagan oo gobolka Soomaaliya iyo magaca ku leh cuslaaday qaarna imka gacanta ku hayaanba waa aragtaan gobolkii kubadii loo kala harinay dhammaantiin waxaan ka codsanaa dabadii dalba inay nagu soo dhawaataan nagala tashataan na tusaaleysaan na tilmaantaan nagala qayb qaataan dhiska garoonka